waana wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkan gaarka ama warbixintan waanu si gaara diiradda ugu eegayno xaaladda siyaasadeed ee dhanka siyaasadda ee ka taagan waddankaasi Itoobiya waanu si gaara diiradda ugu eegaynaa ama aanu ku malixsanaynaa xaaladihii ugu dambeeyay ee waddankaasi Itoobiya oo ay ka taagan tahay xaalad dhanka siyaasadda ama xiisad siyaasadda oo la xidhiidha Tigreega bal waxaanu eegaynaa isku dul taagaynaa gobolka Tigray taariikhda uu leeyahay ama uu shacabkaasi ay ku leeyihiin guud ahaan caalamka oo idil bal aynu eegno ama gobolka Tigray waa waqooyiga sagaalaad ee sagaalka gobol ee Itoobiya ay ka kooban tahay Tigray waa wadankii ay degnaayeen qowmiyadaha Tigrayan Ayrob iyo Kunama Tigray sidoo kale waxaa loo yaqaanaa gobolka koowaad sida ku cad dastuurka federaalka ah ee waddankaasi Itoobiya caasimadeeda ee magaalada ugu weyn waa Mekelle dhulka badkiisa waxaa lagu qiyaasaa 84.722 kilomitir square afka rasmiga ah ee lagaga hadlo waa Tigreeniya sidoo kale tirada dadka ku nool waa 4.69 milyan 2014 qiyaas la sameeyay luqadaha kale lagaga hadlo gobolka Tigray waa Saaho Kunama Xamantenga Agow iyo Amharic Oromo kuliyadaha iyo jaamacaddu waa Mekelle jaamacadda Adirekt waxaa jira khilaaf u dhaxeeya qowmiyadaha Tigray iyo dowladda federaalka Itoobiya Tigray 30 sano ee ka talinayeen waddankaasi Itoobiya waxay gacanta ku dhigeen dhamaanba ilaha dhaqaalaha ee waddankaasi Itoobiya hubka ciidamada Itoobiya gobolkooda ayuu yaalaa waa la sheegay in dhamaanba bayloodka kala duwan ee raiiska iyo militariga gacanta ay ku hayaan rag Tigray gobolka haddii ay la saftaan gobolkooda Itoobiya diyaarad ka kiximayso haddaba saaka ayaa waxaa bilowday dagaal u dhaxeeya gobolka Tigray iyo dowladda uu hogaamiyo Abiy Ahmed oo siyaasad ahaan ay iskaga soo horjeedaan balse waxaa la saadaalinayaa dowladda Eritrea inay la safato Abiy balse warbaahinta waddankaasi Eritrea ayaa waxay ku soo waramaysaa in ciidamo badan oo Itoobiya oo federaal oo Tigray ay isku dhiibeen dowladda Eritrea gudaha dowladda Itoobiya oo u kala jabtay saraakiisha ciidamada Itoobiya oo la safatay gobolka ay ka soo jeedeen Tigray Abiy Ahmed ayaa saaka ku qaaday weerarka Eritrea waxay si buuxda u taageertay gobolka Tigray maadaama ay isku Tigray yihiin waxaana ilaa hadda laga dareemayaa xaalad kacsanaan oo dhanka siyaasadda la xidhiidha dadka dhanka siyaasadda faaqida ayaa waxa ay ku tilmaameen in haddii xaaladahaasi ay sii socoto inay ka cabsi qabaan in dowladda Itoobiya ay ku burburi karto warbixintaasi waxaad kala socoteen oo aad ka dhageysanayseen channelka Somaliland Network News oo mar walba u heegan oo diyaaridu ku ah inuu idin soo gudbiyo hadba xaaladaha ugu dambeeya dhinaca siyaasadda arrimaha bulshada iyo hadba xaaladda ay dadku ay xiise gaar ah ay u leeyihiin waxa barnaamijka isku soo dubaraday halkan idinka soo jeedinayay anigu Cabdinaasir Axmed Xasan Kiraaniya waa farsamadii iyo habayntii Fuaad intaan barnaamijkan dhageyso kala dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafanaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh